fadhi ugu nacbihiin in lagu yiraahdo waan raga miyaad ahayn xiimiyaad lahayn waxa miyaad sameey karniyo waxa si fadhi ugu nacbi kadib markii halkaas laga soo gala raga miyaad ahayn ma waan maxaa ana aadamatidniyo usab saaran wahayn in mid baadeedna bilaaway sheekadu wuxuu dhaargu inta sala sheekasta waa inta habli malcabada ku jiray kana taakalo la sheekasta kan kala taakalo la sheekasta kan kala awtibad la sheekasta anigoo qajilayo oo waxaan aanay igu jirniyadii ayaan idhi taas inaga daaniyo taas anagu la sheekasana showtii ugu xanaaqsanayd bay reebeen bilaa dabiicada ahayd no deedna taas markay igu yiraahdeen ba aan idhi beeydaan waxa idinka yeelimaysay inta u tago waxa tiraahdaa u sheeg jacaylkaaga kadib hanoo timaad anagana tiraahdaa group raqo wada sheekasana marka saaridi arrintii dib loo noqoto intaan meel walba isu taag aan ku jecel maxaad isla waras waxaan waa jacayl daad ka qararsan deedna markaasay wariyaa walaal way faa'iideed oo lagu soo wanjaray walaal jacayl nagu meynaan gaarini orod walaal madaxay salaxdaan sida wallahi bilaatlaan ku jecel waliba halkan wax dhaqaajiye la waa marada bay tooda jacayl ma ha guriga u kala mid ay walaaleeyihiin oo constipation calool istaag nooca ugu fooshaxo oo bilaa aqli dhag madaxiisu aan u shaqeynay ayaa show ay ku tiri ninkaas meelanka kale waay isaga ha adigu ii ballamay xaafada iidaayo ayga daarin bilaa buu soo istay kuriga furama soo galay inantina meelkaas kala soo fadhido gudaha markaan u dhaafay horta waan idin sheekay dhaafay adduunka wax walba san ay loo helay looma heli jirin markaan dharkii qasaashay cadar waan wareysto tulo xaafad uu ku dambeeyay garanay reer aroos ah oo qasabka yaalay baan garanay gaari u raacay gooyno wasi qata cadarka markuu soo buufin taas go'ay isku soo dub macniyu ka bixin اللي قرت اللي تجي هو بار مغرب ماشي وقت يا لبي توكي دور عقر سكوف سوق بحال لا غاس تبيدنا اساسا سو بخوري سان غوي سو ددنا المغرب كيس ka qaaday goy deedna waan halkii baan tagay markaan galay gurigi ayu albaabka marka dhaafay albaabka la xidhay war albaabka yaa xidhay waan eegaysaa ninkii daba taagan feeraha uu leeyahay de horaa ka sii dhimanaysaaba iyo dhabigu stiyo iyo filinkan u socday markaan day suqiimay markaasaan dabeedna marmarka saare annagu reecha barimoodina dadana naga furaan albaab waa iska tageynaa neew guriga meel ma taa ka guuran waxaan de loo fadhiyo studio roos ka ciyaarsanay neew xamilneew luga abuu taagay mise dubbaan uga boodo horteeda su'aal ka qoda geelu de ka cabayo de baraag ma ka faro qodayaal horteeda saasaan eego niyada ka qiimaxay kaas haduu kugu dhicilaa wallahi odayaasha muulinka akhriya caadal ugu doonla dadna iyadoo halkan fadhido dhaqdhaq qoslaysa ayaan dab labada garab ku dhigay mise saas ka dhiga marka arkay inaanay soconin calaal yaa raay maxaad weydiinaysaa maadina islaamahay inay tiba la wareegaalist isna wiilada soo socda dhabigi wallahi inay walaasha dhiman waxbaan iska leelay oo khalkhalam de qofku markuu baqo waxba ka sii moogto inaan walaasha dhabiga u dhigi oo madaxu qarximi waxa isla bilooyin ka daayo oo dabeedna wallahi aadna xiyo aadna xadin u dhiman ee anigana ay fasax iska ciyaarsanay luga aan buu taago iyana way isturta ana waan raacay la qof karbahay baan bacod nooga galgalato xaqiisay qabat waa maalinta quraan ku fakiray jirkaaga niyo halkaad ugu nacabtay dhabigani mid ku seegayo maaha halkaad u dhigata dhabarkaan saa u dhiibtay markaa saa u dhiibtay buu lug gacan taago dhabarkii markuu iga dhuftay bay gudaha u carray anaga danacsan asur baashanayo anaga daniyo aan islaamaayniyo naqasku isagoo hay'adii ku dabaday qabtay markii damaana si walba waxaan bilaa aqliga dhabiga meel kala joojinay bil qofku wuxuu israa qofkii dishay iska sidaayay dabadun buu dad u saa wax waalan buu iskala kaydha markii daa farsamo kan san la dadku wada naftu kaaga qaadayeen ku farsamo kan waxaan si dhabiga dambe soo socda markuu saa kugu dhaco arkaa isu qaad dabada dhulku soo noqo dhulka ku dhacday si mid suuxo kale dadna dhowr meelaha haga dhufta feeraha kadibna iska tago